Do you need me to repeat it? Can you not hear me? Do you have too many cocks in your ears, or what's up? Why is it wrong? Is that too hard of a question? You can mute me with the background noise if you want. I'm ready to hear your answer. It's happening. It's actually happening. That pearl clutching is so beta. Why don't you actually answer the question? It's actually happening. He's calling me a pearl clutcher for saying that child rape is wrong. No, because I asked the question. Why are you? I didn't think this one would happen. You know, we see it often. They'll say that something's wrong, and then Trump will do it, and then they'll defend it. Did that with J6. Did that with the J6 pardons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khair ya barada nirjaniya. I am back. Alhamdulillah rabbil alamin. Welcome back. Subhanallah. Allah waqtiga lagu jira cajiibsana. Subhanallah. Waqti yaable ayaa lagu jira. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khair ya barada nirjaniya. Thank you so much. Hadad hore daawatan episode ki hore. Thank you so much for coming back. And qof baa yidhi burcan kaa daawanaya. Welcome Burco, reer Burco. Welcome. Igu salaam Burco. Burca Boodweyn igu salaam. Igu salaam Burco. Burco waa real. It's a real place. Anyway, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خير يا برادا نذير رجينيا بسم الله الرحمن الرحيم شوكنا بنمقل جرى شوكنا وحا هدرتو انت إذن سو سعوديبا وحا يوصل بحي فيديو okay I don't think you are ready to hear this but reerkii magaca lahaa ninkii bay support garaynayaan wax walba laga sheego ninkii wadankan ee masiibooyinka sameynayay waa difaacayaan I mean talk about kuwani waaba Soomaali reerkaas dhankan magaca leh subxaan waaba Soomaaliba difaaca ay wax walba difaacayaan qofkooda difaacayaan don't forget to like share and subscribe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wiil yaro marmar aan dhageysto ayaa oo TikTok show kule ayaa wuxuu ka hadlayaa nacam ma u haysataan inay tahay wax xun in caruurta la kufsado mid kuwaas u soo galaya wuxuu leeyahay maxaa xumeeyay in caruurta la kufsado aad halka la marayo because ninkaasu difaacaya yeah before we get started don't forget product in the healthy hair care and skincare product most amazing product made by Awesome for us saddexdan hadeer website kad ka iibsan kartaan shampoo iyo conditioner-kii iyo face moisturizer iyo face mask wuu dhamaaday it ran out laakiin saddexdan hadeer website kad ka iibsan kartaan sidaan u arkana waa saddexda ugu importantsan creamkii haaraha serumkii oo wax weeyaan 6 months markaad marsato dee wajigaaga maasha Allah ka goynaya 10 years iyo saliidii timaha haldhaaga ka dhigaysay and welcome some of the pictures before and after and so this is before and after serumka look at that yeah look at that and this is before and after gabadh cad before and after this is the after this is before and gabadhan kalena waa look timaha halkii hair dresser markaad tagto sida relaxer lagu mariyay oo kale ayay ka dhigaysaa wiigiiba mar hadaad ku waxayso timahaaga ood ku style garayso that's how it's going to make your hair this oil it's incredible timaha wiigi mar waa inay heat helaan saasay u kala daadanayaan timahaagu saasay u kala daadanayaan markaasay baxayaan markaasay badanayaan markaasay dheeraanayaan markaasay anyway it's just it's an amazing product meelaha aad ka heli kartaan oo dhan muxuu ahaa website-ka iyaga gala kor u qaada deetana hoosta ka eega liiska 7 qaaradood meelaha aad ka heli kartaan meanwhile and saddexdan haddaad doonaysaan inaad dalbataan dadka Mareykan jooga website-ka toos uga dalban kartaan you don't have to get in touch with me waxa weeyaan waxa la yiraahdaa stem cell regenerator this is stem cell regenerator
and face serum and qof baa soo weydiiyey website-kaygu waa www.hindahairandSkinWellness.com www.hindahairandSkinWellness.com eeg saddexdiiba caddaan madow iyo brown gabadhan eeg wejigeedu siduu ahaa pizza it was like pizza look serumki siduu ka dhigay soo ma aragtaan that's our serum just amazing product anyway let's get started waraaqihii hey honey welcome back iimayladii mucjisooyinka ahaa waxaa ka mid ah waxaa ku jira de waxaan ku jirin ma jirto wax aan ku jirin ba iyo hoogoo dhan baa ku jira ba iyo hoogoo dhan welcome ilwaad quruxay welcome what a beautiful name happy Monday gacalo it's a glorious day glorious waan soo workout garay sidaasaa meel walba biyo iga tifleeyaan markaasaan anigo shower diiran intaan qaatay iyadoo macaatimihii dhujuqeen ayaan haddana biyo qabow ku dhammaystira shaawarka markaa qaadataan biyo diiran ku qaadataan ku dhammaystira biyo qabow it's so good for your immune system it gives you a boost mentally emotionally physically your skin everything it just gives you that markaasad oh my god it's so amazing you know sida mana dhexamoonaysid markaad biyaha qabow ku dhammaystirto aad soo baxdo ma dhexamoonaysid instead of markaad biyo kulul markiiba kasoo baxdo banaanka usoo baxdo qabow aad dareemi lahayd ma dareemaysid it's just so amazing I'm glowing habar yar I'm glowing I am grateful that's why I'm glowing I'm grateful I am grateful I'm always grateful alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay baan mar kasta u mahadnaqaa even markaan when I'm exercising I'm always doing ila wada mahadle I love you Allah I love you Allah I love you Allah you know waxaan dareemo it's like marmar way iga yaabaan moogtay Friday the exercise kaygu waxa weeyaan we do the entire exercise routine waxaanu the every exercise dhowr iyo 20 exercise oo kala duwan baanu sameynaa marka you go to different stations so dad badan line baanu ku jirnaa so you do this one 1 minute and then you stop next one kaad u dhaqaaqaysaa qofkuna wuu sii dhaqaaqayaa and then you do that another minute and you do that another minute and you do that another minute adigu equal about 30 actually exercises and then another 5 minutes or and warm up iyo 5 minutes or stretch xagga dambe marka way usually way iga yaabaan especially the robiska iyo because indhahaan isku xidhaa waxaan dareemaa inaan like buura ka baxayo or I'm like I'm skating inaan duulayo and I'm like in another world and they're like markaan dhameeyo how did you do that baby they think I'm weird oh my goodness I love exercising there's nothing like exercising it changes your whole life don't be lazy habaryar get up and go your whole outlook in life is good the way you move the way you look the way adigo dhan waxa weeyaan you just yeah masha Allah it's so amazing anyway emailladii baynu caruurahan la xadayo in badan waynu ka wada hadalay caruurahan sababta loo xadayo caruurahan because waa sacrifice diinta ayay ka mid tahay in shaydaanka markaad wax la qaybsato shaydaanku wuxuu doonayaa inaad sacrifice siiso like you cannot be friends with shaydan and have morals marka moraliska mar walba waa inaad marka hore waa in laga xayuubiyaa and you also have to keep doing it mar walba ma garanaysaa waa inaad you have to keep proving shaydaanka ma garanaysaa socodku waa a miracle socodku is the best thing haddaad maalin walba socod samayn karto at least 13,000 steps you know between 8,500 to 13,000 baan sameeyaa maalintii actually at least 13,000 waan sameeyaa because marka exercise lagu daro galabtiina waan yara baxaa and marka laakiin there's nothing like walking because walking ku kaagama baahna ma garanaysaa maxaa la odhan jiray commitment kaagama baahna you just get up and go and you have no excuse and so the saacad because way ku xusuusinaysaa marba intaasaa kaa dhiman anyway marka caruurtan markaa mar walba waa loo baahan yahay it's a commodity waa loo baahan yahay caruurta in la cuno caruurta in what's the worst thing waxa ilaahay necab yahay waa innocent-ka in la dhibaateeyo iyo in la cuno
iyo in la xume la ciilo iyo in dhibaato loo geysto marka this is a deliberate attempt ilaahay in laga the highest caro la gaadhsiin karo ilaahay la gaadhsiiyo ma garanaysaa caruurta iyo dadka inisanka iyo barakicinta iyo waxyaabaha marka that's why caruuraha loo dilayaa caruuraha loo gubayaa caruuraha loo kufsanayaa caruuraha nacam it's the highest way sida ugu weyn ee ilaahay ugu caraysiin karto weeye subxaanallah marka mar walbana dad cusub oo aad kilaabka soo geliso waa inaad heshaa ma garanaysaa but not only that ibleyska ma bliis garayn kartid shaydaanka ma odhan kartid ibleysow doraad baan sameeyey a lot of crimes ama a lot of horrible things doraad baan sameeyey maanta shalay iyo maanta waa nasanayaa daa ma odhan kartid you have to keep doing wixii xumaantii waa inaad ku jirtaa you know it's like the energizer bunny you have to keep dhiiggii waa inuu qulqulaa caruurtii waa in la cunaa waa in la kufsadaa dhibaatadii waa inay badataa dabku waa inuu adduunku waa inuu gubtaa waa inuu gilgilmaa on top of that iyagu laakiin waxay doonayaan raaxo iyo balashar iyo ma garanaysaa laakiin marka shaydaanka hawshiisii waa inay u qabtaan so caruuraha markaa la xadaya ugu badani waayo caruuraha wadamada masaakiinta ka timi banaanka iskaga ciyaaraysa that's why wadamada masaakiinta caruuruhu banaanka iskaga ciyaaraan waxa la samaynayaa dad baa la shaqaalaynaya imise inu maqlaynay baryahan iyo baryahan caruuraha soomaalida aad baa loo xadaa meel walba everywhere caruur baa maqan baad intaa maqlaysaa ma garanaysaa soomaalida may xadaan soomaalida waa la xadaa weliba koonfurta xamar koonfur kale maaha xamar aad baa loo xadi jiray caruurta loo xadaa oo looga soo hadlaa in badanna looga hadlaa laakiin meelaha kalena waa la xadaa caruurta laakiinse dee haddeer soomaalida si fiican loogu soo jeestay ma garanaysaa haddeer somaliland xidhashadan lala xidhay because caruurta xadideedu isna daad easy marmarka qaarkood because magaalada sidaad uga saaraysid ma garanaysaa that's where diyaaradahan yaryari they come meel hadday xidhiidh rasmiya la yeeshaan oo diyaarado yaryar ay aad u yimaadaan sida ugu fudud ee loo xadi karaa caruur waxa weeyaan diyaaradaha yaryar ma garanaysaa because ilmaha la dooni maayo ilmihii oo dhintay ma garanaysaa ilmihii yaraa haddii la suuxiyana waxa laga yaabaa inuu dhinto marka ilmihii nool waa in loo geeyaa ilmihii nool ilmaha caruurta ay kala haadinayaan iyagoo nool kala haadinayaan ee dhibaataynayaan that's the whole trill ma garanaysaa marka waa kan this email is really shocking naagtani waxay leedahay waa naag reerahaas ah waxay tagtay meel walba waa laga xadaa meel walba waa laga xadaa laakiinse dee meelaha chaosku ka jiraan way kasii dhib badan yihiin oo xadidu way kasii badan tahay xamar meelaha ugu badan weeye because dee caasimadii weeyaan millions and millions baa ku nool dadkiina ciidda ay camaarkaasi ka badan yihiin there was always ma garanaysaa dhibaatooyin badan baa ka jira inkastoo hadda nabadii soo badanayso laakiin meel walba waa laga xadaa everywhere in the world waddankan aan joogno aad baa looga xadaa caruurta that's why caruurta sidaa loogu daba taagan yahay sida helicopterka intaa loo because aad baa loo xadaa 200,000 baa la xadaa sanadkii baa lagu leeyahay anyway waa kan check this email very very shocking xalito Grammyskii bay ahayd gabadhan Billie Eilish baa la yiraahdaa a beautiful musician look waxay tiri xalito waxay tiri you cannot be illegal no one is illegal on stolen land this was huge it's just really hard to know what to say and what to do right now and I feel really idina ma noqon karto waxay tiri sharci darro idina kuma noqon karto wadan markii horeba la xaday Allah Republicanski way isku buuqsan yihiin how dare she said that okay mid qoyana baa halkan soo qortay adna baa geysa beenta jooji Kim Farah adna inaad ku waalateen way arkayay oo aad jiidanaysan oo lahayd caruuray geysaayo caruuray waa iyada caruuraha geysay waa caruuraha carabtii iyo muslimiintii wadnaha u qali waayeen iyagu ay u yeelanay wadnaha u qalaan not because way ku jecel yihiin caruurtii aad geysay maaha because way jecel yihiin it's because dambay ka wataan waxay doonayaan inay wadanka ku soo galaan oo look waxyaabahan la yiraahdo ma garanaysaa samafalku waa waxyaabaha aadka ugu dheereeyaan because af wax xun xisho but you're too dumb to understand idinkoo caytamayo badan waan idin arkaya habarta sidaan ah sidaydaan idinku habroobin maybe habra noqon maysaan idinkiyo
you know, by the time at 30 gaadhaan suicide baa sameynaysaan waa isdilaysaan miyaa waa dhimanaysaan because habro nin iyo naagba waa idinka ku waashay habarsa sidana habraha sidana qoyan qarmin weyn get the hell out of here afkaaga ha la gelin adna ma gaadhaan adna waa islaantii xaawe joogtay muxuu ahaa dhakhtar xaawo kale weeye sharaf iyo cis iyo karaamay mudan tahay even xataa haddii aanad jeclayn waa gaalad waa kan weydi kale gaalada weydika sidaa u leefaya ee meelaa u martaan waaye ee habeen iyo maalin isu soo biimeynaya hypocrites diinta dadka ha faragelinee faraha ka qaada diinna ma haysataane dulliyahow you cannot come here and adna inaad been ka sheegto cambaaro iso oo wax weeyaan ceebayso ilaahay haddaad ka xishoo weydo annaga afka ku qabanayno kaa tuurayno meesha qoyan yahay beenta maxaanu kaaga sasamanaynaa waxaanu halkan usoo fadhiisanayba inaanu nahno caruurihiina ilaashada anyway let me read this email okay waa kan emailkan check this out and naagtani waxay tagtay diyaarad ingeyda iyada iyo reerkeeda iyo friendskeeda lagu qaaday waa naagtan afka cinjirkaale nin bayba weeg tahay waxaa laydinka cararayaa waa afxumadaasaad meel walba la taagan tihiin muxuu ahaa been ka sheegaysaan dadka the last people that will sell their children waa dadka somaliland u dhashay haddaa koonfur ayana dadku iibinaynin caruurtooda which they don't then waqooyina sidaas leeg caruurtooda iibin maayaan it's the same thing but galadaa ma siin kartid waxa ninka weegdaya soo ninuma eka wuxuma ninbaa anyway naagtan waatan email bay ninkan u qortay and waatan waxay leedahay email bay u dirtay waxay leedahay let's see subhanallah it's a very scary email it's shocking it is shocking horta maxaad i caydaa dadka adigaan ku caayaya haddeerto meesha kaa tuuraya kuma caayina runtaan kuu sheegay cayda maxaan kugu yidhi dhilo kuma odhan idinku dhilaa dadka ku tirahdaan waxbaa isfuulay baad tirahdaan oo nin iyo naagaan shuqli shaqatoon isku lahayn baad dusha iska saartaan dad baad ku tirahdaan waa gaalo idinku dadka waa ijaafaysaan oo been baa ka sheegtaan anigu idinma caayin laakiin runtaan idin sheegay meeshayda kuma caayi kartid baan ku idhi dadka okay beenna kagama sheegi kartaan cayda idinka caan ku ah so fuck off haddaan ku leeyahay stupid idiot you're not welcome halkan cayda waxaanu nafta noogu keenteen waa cay habeen iyo maalin aanu idinka joogi weyne waa idinka beenawaasiinta anyway waa kan emailka title Kenya on the plane now with Matty we are about to take off for Amsterdam to Nairobi. We land the morning of the 19th in Amsterdam and late evening of the 19th in Nairobi. On Sunday morning, we fly into the bush to Koteris camp, bush beadia, camping, yeah, or somewhere, in the Masai Mara. Then to Sasab in the 24th or 26th, because I think 24th, 26th. Then on 26th to Lamu, to Peponi Hotel and back. Basically, and that can waa dad vacation u diray. Yeah. Vacation buu u diray, wax kastuu ka bixinaya. And marka waxa weeyaan details private plane baa lagu geenaya marka details detailskii bay siinaysaa ma garanaysaa okay and back on January 4th we cannot thank you enough yet another life experience if the Messiah warriors don't eat us iyagaa dadka cuna so they think dadka inay Afrikaankaasi leeyihiin inay cunaan don't forget like Sarah please and kuwiina dee aan saarani and haddaan de
de waxaan haddaanayba na cunin masaayad haddaanayba na cunin bastard dheh and or the pirates of Somalia haddaan ama piratska Soomaalidu yeah bismillahir rahmanir rahim bal edab daradooda day okay coming to PB to see you in January. I don't know, where is that, PP? I have no idea. Taking photos, we'll have a ball and think of you all the time. One so magaranaysa waqti fiican baan soo qaadanaa walba xasaayna waan sakir doonaa. Can bring this is wagan. Can bring a little baby back. Can bring a little baby back for you, or 2 boys or girls. Yeah, and ilma yar baan ku keeni doona. It's like marka friends kaagu ku weydiistaan and banaanka ku maqan yihiin ku yidhahdaan ama meel aad tagto aad tiraahdo maxaan kuu keenaa maxaan idin keenaa ilma yar ama labaan kuu soo qaadi karnaa. Yeah, we'll email when we get to Amsterdam. Yeah, so there it is. waxaan ku soo iimay inta kale waa waxyaabay xan iyo waxbay ka hadlaysaa and so caruurta yaryar markaa tolo maxay ahayd waa caruurta yaryar diyaaradaha private ka sidee lagu qaataa caruurta sidee lagu it's because wadamadan masaakiinta ah Afrika dad baa la dirayaa lacag yar la siinaya caruur soo xad baa la odhanaya imise qof baa caruur laga reebay iyagoo caruur sita aanay dhalin lagu qabtay oo laga reebay. Yeah, exactly. Hanid Amal, exactly. Marka waxa weeyaan and diyaarad private markaad sidato here's what waxa dhacaya and dadkan Afrika ee masaakiinta iyo wadamada Asia iyo meelaha xataa South America iyo meelaha caruuraha laga xado wadamada inta badan meelaha saboolka ah ayaa laga xadaa deetana halow gacalka deetana waxa la oranayaa and waxa la oranayaa qof baa loo dirayaa moogtahay qof baa loo dirayaa waxa la oranayaa ilma noo soo xad dadkiina waa iska desperate baa jira oo dadka u xadaya ma garanaysaa ayaama dhexdaas ma garanaysaa ninkii dadka dilayay ma garanaysaan ee la qabtay ee dheeraa ee gabdhaha googooyay gabadhii saaxiibadii jarjaray ma garanaysaan gabadhii yaa dad badan buu googooyaa la lahaa ma garanaysaan and marka I'm thinking and Candace bay kaaga dhigtay adigana marka I'm thinking Candace beritaan kasoo hadli doonaaye I'm watching her today and then Kamanta iyo Fridaydiiba waan isku kiin update garayn doonaa marka diyaaradahan engageka waxa meel kasta loogu qaadanaya waxa weeyaan it's because qof baa loo diraya caruurtii qofkaasa soo xadaya waxana loogu keenaya dadkan waxa la mariyaa kibre iyo cadaanka iyo lama baadho moogtahay waada maqasheen marar badan iyadoo for example meel walba ka dhacdaa xataa meelahan airportada leh oo dhan laakiin ayaama dhexdaas wadikii xataa maqlayay gabdho muxuu ahaa xamar oo kale leh and dad baana lagu hormariyay ajnabi mar haddii la arko dhilifka loo ruxayaa waa laga hormarinayaa moogtahay and that's actually everywhere the xamar waa laga hadlayay the same thing marmar baa VIP area the VIP da oo dhan waa loo xirayaa exactly pizza gate room bay ahayd anytime aad maqasho waxba conspiracy ah waa wax jira weeye ya VIP di baa loo xirayaa waxay la soo galeen meesha cidina ma oga ma garanaysaa حتى مرمر قاركود باسبورد ودي وحده بعيد بما يكتب العقم بهوصل لغسين يا دتكي عدنا إيه ميسو إمي سقف باكوت ما دني مسقف باكو بحيسان ديار دودي بيتوسو قليان that's it so دد باكرا عن شقة كلا الحين مربى ودن تجا for vacation ديار إنجيل للصين يو vacation بس كده يعني وتجان دتكي ودن كاي ماشي تجان وفرحي أنا دد أجنبي أنا يمي سيدي من مال نحدا سحر جيسا دد أجنبي ودد مري كفر حسناي سيدي أجنبي قشي look at us برواقة أنه هاي سنو مرايكم باتشورا ساسا يقول قبض عجلة يا very very dangerous مصيبة كسوق قشي مر حديدة كاسي أي وحيابها سمعيان وحويان ديارة إنجيلة that's why حلنا is a very very dangerous place ديارة إسكا سود دقاء أو إسكا بحاء
waxa lagu leeyahay 8 o'clock meesha lagu gaadho waxa weeyaan diyaarado hor le baa yimaada maraakiib hor la soo xidhata meeshaas waa wadan ku dhex nool waxbaa galay wax gala mooye wax kama soo baxaan qof Soomaali xitaa ma gali karo oo kama shaqeeyo yaa dadka kuwa shay abaarso anigu waa tagay qof kasta tagi kara waad soo seexan kartaa waa school waad soo seexan kartaa ardayda ka soo baxda quraanka ay ku dhameeyaan wax kasta ay ku dhameeyaan xalana on the other hand maba geli kartid ba it's not even Somalia yeah it's not even Somalia dad inantii yarayda bergii waa idinka garanaya lagu dilay laba cali isma weydiin yaa dilay meesha ajaanib baa wada jooga lama baari karo xataa they have their own laws xaq Allah yeah marka and by the way government knows that and I don't know why they after this school of course government knows way ogyihiin kuma dhacaan xalana ma iyaga xidhi karaa qoorta loo dheereynaya car wallahi ku dhicin ma soo hadal qaadi karaan xataa dadka dawladda ka shaqeeya waa xarun CIA iyo baliya baasiyo saddexda xaraf iyo masaad iyo ya marka waxaan leeyahay dadka naagii reer Soomaaliland sidaa islaha nimankii yaryar aksa uga agniikinayay nooy caruurihiina xajista mar hadday bilaabaan inay idin yimaadaan diyaarada yaryar oo iska socdo ingeeda we're here for visit fasax baan u nimi just to hang out with walaalahayo Isaac family yeah wallahi billahi tallahi caruurihi raaba la feenaya ya caruurihiina ilaashada il dheeraada bixiya mar haddii diyaarada yaryar oo ingeeda idin yimaadaan ba iyo hoog bay idin soo galay ba iyo hoog waa la isu furmay haddeer diyaaraduhu way iska socdaan yaa way iska soconayaan diyaaraduhu daa qaateen cali bashiir welcome my friend yaa wallahi billahi tallahi maxaa deetana waxa weeye carruurta yaryar ee xiidmahooda yaa xiidmaha la muudsanayo ilaahay baynu ka magan galnay ilaahu inaga qabo ba iyo hoog baa soo galay meel ay soo galeen ilaahayow rabbigayow ummadan xaqa tus dee horta waxba kama qaban karaan haddeerto oo waxa weeye mar haddii loo yimi muxuu yidhahdaa odayga Jabuuti baa yidhahdaa waana loo yeedhay waa kan odaygii alla odayga laakiin maxaa ka siiya odaygi waa kan wuxuu yidhi waa kan wuxuu leeyahay annagu odaygaasaan iska daba soconaynaa talo odaygu daba soconayaa waaye baas waa kan odaygii wuxuu leeyahay odaygaasaan iska daba soconaynaa okay waa kan odaygii Jabuuti nimanka Soomaaliyeed waryaareen idinku waxaad daba socotaan waxaad daba socon kartaan nin ajaaniba Axmed Abiib miya way Axmed Abiib buleey baa iska daba soconaynaa ya nin Soomaaliyeed in la xukumo buu ku fiican yahay isagu he can be a leader annaga leader noqon karna dumarka leader noqon kara nimanka Soomaaliyeed they can't lead I'm sorry waa kan sagole ha noolaato Ethiopia ha noolaato Soomaalidu ha noolaato kulligeenba odaygan baan daba soconaynaa Ethiopia ha noolaato Soomaalidu ha noolaato kulligeenba odaygan baan daba soconaynaa odaygan baas waayo I know dadku waxay leeyihiin waxa weeyaan waxay leeyihiin waa abi but maybe it's not abi I don't know but dadku waxay leeyihiin waa abi odaygan baas laakiin kolleyba ciddii la doonaba ha ahaadee maxaa loo daba soconayaa haddii lala socdo ka warrama Ethiopia ha noolaato Soomaalidu ha noolaato kulligeenba odaygan baan daba soconaynaa maybe waa odaygooda maybe ciisuhu waxay leeyihiin Soomaalida I don't trust them hadday doonaan been bay ka sheegayaan wallahi laakiin dad baa dhaaranaya waxay leeyihiin waa abi oday maaha waa nin yare laakiin waxa weeyaan oday waxa laga wadaa nacamda reer Jabuutiguna si yaro faniya isaga hadlaan moogta anigu waxaan isleeyahay maybe waxa weeye dadku wax eeg waa kuwa soo wada qoraya waa abi bay wada leeyihiin iyaga iga og
والله هو أبي بيبودلين يا marka aan waxaan islahaa maybe inay been ka sheegayaan uu ugaaskooda yahay maybe ugaaskooda yahay it's not AI ma definitely not Soomaalida waxa hadda AI bay leeyihiin marka bal mar kale aan ku ceshano mar kale ha noolaato Ethiopia ha noolaato Soomaalidu ha noolaato kulligeen ba odagan baan daba soconayna ha noolaato horta Djibouti anigu Djibouti waligay tagi maayo haddaan tago way qabanayaan waa abi baa la wada leeyahay dad baa iga ogde waa abi waa la soo diray aniga yaa abi weeye waariyaan like iska saara kulliba waa daawanaysaan qof baa le waa fake it could be fake I think ma aha ajladu fake ma aha laakiin waxa laga yaabaa the context inuu fake yahay context inuu fake yahay laga yaabaa marka but I wouldn't be surprised and in nin Somali uu oranayo odayga ninka Soomaaliga I'm sorry you're my brothers waan idin jecelahay but leaders malihin kolley anytime soon waxay noqon doontaba wax aad iska daba socotaan uun baad jeceshiin so I wouldn't be surprised in cid kale la daba soconayo but I think it could be inay been ka sheegayaan this time code Allah waxaan doonayaa inaan idin sheego inankii Alex nimankii dilay waa la soo sheegay can you believe waa niman brown waa niman Spanish nimanka inanka dilay adduunyay waa la leey adduunyoy waa la leey ya adduunka dadka ugu xun meel walba ya haddaad these are the waa nimanka inanka dilay labadaa nin waa Spanish yeah so gabadhana inoo sheegaysa very heartbreaking news we found out the identities of the men who killed Alex Perret. I think waxaan isleeyahay waa reerka isku haleyn bay qabeen because dad badan oo magacyo Spanish sito oo iyaga magacyadoodana way bedelaan anu waxaan isleeyahay waa iyaga there's no way nimankaas kalsoonida inta leeg ay u qaban waa kan. Well, in some breaking news, we found out the identities of the men who killed Alex Peretti in Minneapolis last week. According to ProPublica, which did some investigating reporting on this, the two federal immigration agents that fired on Minneapolis protester Alex Peretti are identified in government records as Border Patrol agent Jesus Ochoa and Customs and Border Protection Officer Raimundo Gutierrez. So these are our dudes. These are the men that fired on Alex Peretti. And this, again, was found out thanks to the reporting. War naga tagadan la daawanayaan ma dhuusay nagu tooganayaan mid baa soo qoraya reerkaas ku daawanaya dulayste waxba naga ma gelin hadan daawanayaan ma dhuusay nagu tooganayaan inda laga baqaa Ilaahay bay ku yaalaan astaghfirullah kelmadaas kelmad fiican malaamaha ما دبر لي الفاتحة يا كنت عايشنا يا عذابتي الله يجي إذن كم هيدن جي anyway واكن نمان كان يسكو هلين بيقبان وارهير كاسان ملاينيا نين إسبانيشو عادي سدا هاوشير مقعيدا أنا عاد بيوقاتان إسبانيش I'm telling you something is weird yeah something is weird following they do like really good original investigative reporting. Actually, the fact of the matter is ProPublica should not have had to do any investigative reporting in the first place because it's insane that these people hide their identities. Why are you wearing masks? Why is that allowed? How is that a thing? Both of these people should be arrested. Both. Isku halayn bay qaban, I'm telling you. Laakiin ma idin sheega hadda fiiriya ninkan mar walba waan isweydiin jiray. Waxaan oran jiray ninkan maxaa ka siya? Ninka Palantir, one of the co-founders, haddana CEO-ga ah Alex Carr baa la yidhaahdaa waa kan waxaan odhan jiray ninkan the way uu hadlo cadownimada ka muuqata xumaanta siduu isleeyahay show ninku waa nin half madowa yaa waa ninka kambaniga Palantir ee dadka dhegaysanaya adduunka haddeer dhegaynayo dhaadadoo dhan iyo wax walba isku isaga ninka Peter Thiel la yidhaahdo labadooda ka dambeeya ninkaasi siduu u hadlayo siduu u dhaqmayo xumaanta ka muuqata cadownimada ka muuqata waa kan marka waxaan odhan jiray ninkan maxaa ku jira talo
yaa ninkani markuu hooyadii waa madow aabihiina waa reerkaa markuu college studentka ahaa yaa cid walba wuxuu rumaysan yahay meeshay joogaan in dadka lagu dilo oo lagu dhibaateeyo oo ma garanaysaa barnaamijkaygana waxaan uu samaynay buu ku leeyahay palantir inaanu adduunka ku xukunno oo ma garanaysaa reerkaana aanu ugu hiilno wax allaale waxay doonayaan aanu siino Alex Carr marka waan yaabana waxaan leeyahay iyagu nimankooda xataa caadiga ah ee reerkaasi aad og tahay usually sidaa uma hadlaan way siro dhowraan ma og tahay waa kan yaa xumaanta iyo cadownimada intaa leegma muujiyaan usually very calm cool and collected nacam they're not power hungry inay yihiin they don't project their power outside because already way ogyihiin waxay doonaan inay samayn karaan show ninkani waa nin half madow ah yaa waa nin half madow ah oo waxa lagu leeyahay markuu college-ka dhiganayay wuxuu ahaa nin he was considered a black man and nin caadiya buu ahaa oo wiil madow ah because waddankan mix markaad tahay qof madow baad iska tahay ma garanaysaa markaad half black half madow tahay qof madow baad iska tahay ma garanaysaa marka waxaa la yidhi madowga dantooda iyo buuba xaqooda u dhaqdhaqaaqi jiray stanford bay isku barteen computer ninkii awood markuu helay ee awooddaa la siiyey ayuu waxa lagu leeyahay 380 degrees buu xagga kale isu bedelay haddana wuxuu nin reerkaasa wax walba oo reerkaasi u baahan yihiinna inay helaan cid kale cid bini aadan oo hor istaagi kartaana aanay jirin by the way waxaa dhacday haddeerto very interesting thing maanta newska laga soo daayey maxaan idinku odhan jiray I was never comfortable talaagadahan smart applianceska muxuu ahaa smart carskan wax walba I don't know if some of you remember but many times waxaan idinku idhi waxyaabahaas oo dhan waxaa loo samaynayaa eventually dadka in lagu soo jeediyo oo dadka lagula dagaalamo welcome Hope's dream I love that Hope's dream and maanta waxaa la soo sheegay in haddeerto talaagada lagugu soo dhaqaajinaya hal dil doono waa lagugu qarxinaya talaagada qofkay doonayaan inay dilaan yaa teleefonkaaga gaarigaaga maanta waxaa la soo ogaaday in laba qarinayay few days ago congresska maraykanku ay baasgareeyeen sharci kill switch la yidhaahdo waa maxay kill switch baabuurkaaga anytime ayaa lagaa daminayaa dibna u daari maysid marka iyagu waxay leeyihiin incase qofku daraank yahay oo cabsan yahay oo markaa waddada marayo oo markaa gaarigaa ku akhriyaya oo kaa shakiyaya deetana boom gaarigaa kaa daminaya si aanad dhibaato u geysan that's not the case that's not it macnaheedu waxa weeyaan qofkii la doonaya in gaariga meel daran lagala tuuro ama lagu qarxiyo ama ma garanaysaa ama lagu xidhaba la yidhaahdo meeshaad joogtaba lagugu xidho ilaa iyo inta ciddii ku doonaysaa kugu timaado shutdown gaarigaaga lagu sameeyo ama at the very least markay ugu yartahay there so many waa endless waxyaabaha lagu samayn karaa xataa waa lagaa shakiyayaa xabsiba looma baahna in lagu diro anymore gaarigaa lagaa shutdown garaynaya talaagadaa lagaa dansanaya electricityga maalin dhow haddii la iska dansado I wouldn't be surprised and telefonkaa lagaa dansanaya debanking baa lagugu samaynaya noloshii baa lagugu xidhiidhaya how are you going to survive that's where we're heading halka aynu ku soconnaa waa halkaas marka anyway halkaasaan idinkaga tegaya khayr iyo baraadhaan idin rajaynaya don't forget to like share and subscribe weligay maan jeclayn meesha all this electronics xataa telefoonada always waxaan sugi jiray telefonka inta markay dadku 2 sano iyo 3 sano ay haystaan baan anigu dib u soo daawo habar yar topic uu fara badan yahay boqol wax baan ka fargaraynay marka anyway Allah inoo sahlo ilaahay baynu talada u dhiibnay may Allah help us protect us and yeah subhanallah Black Mirror episode yes exactly nabaday khayr iyo baraadaan idin rajaynaya ilaa iyo kulankeena dambe but there's also exciting things happening Abscroll is growing
where's the umma abscroll ma isugu wada tagaan 200 milyan mar kaliya shock an adduunka may ku ridaan oo ay sign up ku sameeyaan shalay to dhan buu ahaa I think a lot of people are joining that app abscroll maanta video ma gelin mar dhowaan video yar gelinayay yeah I got to do my thing maanta what else did I do and I think you guys should do it too maanta waxaan donation siiyay and this donation waan idin sheegayaa it's not the kind of donation u baahan in la qariyo this kind of donation because waan idinku encourage garanayaa care ban donation siiyay care waxay samaysatay pack political back ay samaysatay and also care waynu wada baahanay Mareykan hadaynu joogno ma garanaysaa civil rights keena ayay protect garanaysaa so if you come across care donate yeah khayr iyo baraan idin rajaynayo iska seexo waxbaad noo faa'iideysay xagee seexnaa waa maalintii casar baa tukanayaa waa maalinne waa ma seexanayo iska seexo adigu anyway khayr iyo baraan idin rajaynaya I love you I thank you for your time nabadee